santahay madaxweynaha salaama uu ku maadsan yahay madaxweynuhu inuu halkan yimaado dhalinyaradii la hadlo oo jaanis uu si su'aalo lagu weydiiyo madaxweynaha iska baro waxa la yiraahdaa maxamed xasan bashle waxaan kamid ahay dhalinyarada wariyaasha ee muqdisho ka shaqeysa waxaan rabaa dhanka taariikhkiina aan ka hadlo dhanka shaqadana ka hadlo waxaan rabaa su'aalaha ahaadaan waa su'aal wax kale ma wad ma imaan lahayn halkan hadii aan madaxweynaha su'aal la weydiin lahayn khudbad ma jeedinayo waa ma santahay waxaan rabaa dhanka shaqada markaan ka hadlay madaxweynaha waxa la yiraahdaa markii golo wasiir la soo magacaabo wasiirka yimaada wasiirka ha aado tusaale u soo qaadana kama wado wasiirka warfaafinta maareey wasiirka dhalinyarada nuux markii tusaale yimaadaan intii isku jufaha oo walaalaha ilma adeer bay soo wataan oo wasaaradii geeyaan kuwii hore u joogana waa la eriyaa waxa la yiraahdaa waqtiga ay ka dhamaad iska baxa marka taa dawladdu maxay ka qabanaysaa tusaale anu wasaaradii warfaafinta u shaqeynaayo ama wasaaradii dhalinyarada ama wasaarad kale oo shaqadii shaqaalaha hadii yimaado wasiirkii oo keensado qof kale beeshiisa anigana meeshii la iga riixo la itaakeeyo socodada ima galayso waa inaan tahriiba oo aan badaha maraayo baasboor caalami ku soo qaataayo xafiiskii madaxweynaha imaada su'aasha xigta taas dawladdu maxay ka qabanaysaa midda kale waxaan ku dar rabaa oo inaan ka hadal rabo arrimaha la xiriira shaqooyinka la soo bandhigo tusaale maalinleedaan shaqo barbaaray internetka waxaan arkay shaqo la doonayo shuruudeedu ay tahay Soomaaliya qofku waa inuu amxaari yaqaana ilaahan kugu dhaarshay madaxweyne ma Soomaaliyan ama amxaarana waa in la kala saaraa baash marka dawladdu maxay ka qabanaysaa dhanka luqadaha waa in sidoo kale arintaas laga baaraan daga mid kale aan raacsana arinta tahriibka laba is saaran mid taariikhku waxay tahay waa idin la kaftama madaxweynaha iyo wasiirada madaxweynaha tusaale ama wasiirka warfaafinta fadhiya ama wasiirku nuuxoo yar yaan isleeyahay xogaa ma uusan gursan hadii uu gursan caruurtiisu ay yarihiin waxa la yiraahdaa caruurtiinu dibadaha jiraan Mareykanka Canada United Kingdom caruurtiinu iyo maqaan oo halkaas joogta idinku waxana leedihiin wadankii joogo caruurtiinana Oxford University wax ku baranaya yaa madaxweyne marka tusaale wiilkaagu waa target waan ognahay laakiin hadii madaxtooyada uu deganaan lahaa ana ku qancila xadila waraa wiilka madaxweynaha uu joogaay maxaa adig ku wadaayo Mareykanka ka doonaysa laakiin wiilka madaxweynaha maqan wiilku wasiirku maqaya ana maxaa muqdisho ka jooga ya waa in arintaas madaxweynaha baasaboorka la tayeeya tusaale waxa kamid ah baasaboorka Soomaaliga waxa dhibaatada hadeer baasaboorka Soomaaliga inta ka baxo oo aan Mareykan ka degi kara ama Talyaaniga anoo ka degi kara wallahi inaan wadan islaameed aadin oo waa soo raaxaysan afar bari marka maqnaadana soo laaba laha laakiin dhibaatadana hayso waxay tahay war baasaboorka Soomaaliga wallahi Uganda ugu dambeeyso on arrival lagu qaadan jiray wallahi inaadan tagi karin aadan ku tagi karin waa in safaaradda 20 iskaga dabalaalaataa waa in baasaboorka Soomaaliga la helaa wadan si caadi aad ugu tagi karto war aan Mareykan hadii maanta oo baasaboorkayga shaqeynaa aan tago wallahi inaan Soomaaliya Mareykan wax uga baahneen Obama inaan la soo kulmaan soo laabala inta ku imaalaha marka baasaboorka Soomaaliga madaxweyne hal tayeeyo tayaha loo yeelo on arrival ha lagu qaato fiisiisa ugu dambeyntii jaanis madaxweynaha jaanis ka heystaa hal su'aal aydo madaxweyne waxaad ka hadashay arintii maalinleed markaad European Union-ga tagaysay arinta Talyaaniga madaxweyne waxaan rabaa waxa tir dhalinyarada Soomaaliyeed Talyaaniga ku nool waa la soo celinayaa midowga yar waxaan kala shaqeynaa soo celino madaxweyne hortaas ana waan ka xumaaday maxamed ahaan waxaan ugu xumaaday waxay tahay ninka inuu bad maray intaas dhibaato mar hooyadiis ma gafe ee ka dhiibta lacag oo yaanyadii laga deensada meel walba la isku talwacday inaad tiraahdo waa la soo celinaa horta taas ani aadan uga xumaaday waxa la rabay inaad kala hadasho dawladda Talyaaniga ama Sweden ama Norway inaad tiraahdo wariyaha sharciga igu boobsiyo carruurtaan xaliisiyo oo luuqa kula hadasho sidaas la rabay madaxweyne midaasna waxaan leeyahay bal hadii micnaha dal jeceliyo dhalinyarada dalka loo soo celiyo ay ka aheedna bal waad ku mahadsantaa laakiin dhalinyarada Talyaaniga joogta ee walaalaheena bal sharciga haloo boobsi taas aan ka codsanaa la hadal waa mahadsantahay waadna mahadsantahay oo salaam madaxweyne oo faraxsana inaan dhowr su'aal ku weydiiyo su'aalahan ayga kala ilmaaminday ana ku xasuusin doona maxamed aad u mahadsantahay dabcan waa mahadsantahay aad iyo aad caraba aad u mahadsantahay bash lama waa mahadsantahay maxamed waxaan rabaa horta dalkan anaga maalintii aan taladiisa nimid dawladda maanta joogta xukuumadda maanta joogtahay shaqaalaha dawladda 1200 qof ay ahaayeen maantana 4800 5,000 qof waay oo soo martay nidaamkii maxaan ku raadayay shaqaalanimada wadadaas dheer iyo intaas oo tiro shaqaale la shaqaaleeyay mid iyo laba qaldan iyo wax qaldan iyo si laab oo qaldan mid shaqada ku yimid iyo waxa ay lama waayo horta waa koob
haddii sheekada aad sheegaysid ay jiri jirtay maanta siday u jiri jirtay inay u jirto u malayn maayo lianna wasaaraddu inta badan inta lacagta soo qaado foolyabaago gurigeeda ama xafiiskeeda shaqaaluhu ugu saxiixaan oy lacag ugu qaybisa ma jirta shaqaalaha dowladda inta la shaqaaleeyey la sharciyeeyey laga qaaday biometric system ayaa bangiga dhexe la geeyey qof walba meeshaasuu tagaa mashiinku intuu farta saaro maga la ogaado inuu asigaa ka bacdi mushaarkiisa meesha ka soo qaataa uma sahlana wasiirku marka inuu maalin walba 5 kuwii hore laga saaray kuwan hal ay qoro biometric inuu yiraahdo uma sahlan si biometricas qofka loo geeyna guddiga madaxa bannaan ee shaqada muxuu ahaay ay soo martaa oo soo screen gareeyo oo keena meesha horta maanta sidii awal u sahlanaa jirto uma sahlana xayn shaqaalaha oo meel joogto iska taga inta la yiraahdo xayn kale in la geliyo meelaha qaarkood oo weli biometricas aanu ka dhaqan gelin systemkaas aanu ka dhaqan gelin waa laga yaabaa weli inay ka jirto shaqooyinka qaarkood oo ama temporary shaqo ah ama consultancy ah ama muxuu ahaay advisor oo qof hay'ad iyo wax lacagtooda ay bixinayso waa laga yaabaa inay ka jiri karto laakiin shaqaalaha dawladda inta badan ma dhahayo 100% way saxantay laakiin inta badan way soo saxantay inta dhimanna way saxmaysaa horta wasiirkii maanta yimaadahay inuu dad aad u badan oo wasaaradda joog inta dareeriyo oo kuwa kale meesha ku soo xereeya maanta aad ugu sahlana inay sidaas ay dhacdo waa laga yaabaa awal inay dhici jirtay marka inta dhimanna waan saxaynaa haddii alla yiraahdo waana dhiiri gelinaynaa su-aasha ku saabsan dhalinyarada talyaaniga joogta wiilkayga waxaan rabaa inaan kuu sheegay dhalinyarada talyaaniga joogta aniga aan ka hadlahay xeriyay ku jiraan muddo sanada ah mana ka baxaan meelna ma aadaan nolol aan macno lahayn oo aad iyo aad u dhib badanna waa ku nool yihiin in badanoo ka mid a anigaa talyaaniga tegay iga codsadeen iska noqda diyaarada iska raaca ee soomaaliya ku noqda wax la door bida ma aha laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay dhallinyaradaas in talyaanigu ay xirfado noo baraan booliis nooga dhigaan ama xirfado kaloo yaryar ay noo baraan ayagoo xirfadaysan ay noo soo celiyaan weliba waxaan aad uga hadalnay waxay ahayd arrinta booliiska dhallinyaraha in tababar la geliyo booliis laga dhigo xirfadihii booliisnimo dambi baaris hadday tahay isgaarsiin hadday tahay howlahan kale gaadiidka iyo waxa shaqada xirfadda ay booliisku u baahan yahay inta la soo baro shaqadii ayagoo yaqaano qalabkii shaqadaas ku qaban lahaayeenna wata in la soo celiyo kuwa qaarkoodna in xirfad inta la soo baro tuulkii si private ay ugu shaqaysan lahaayeen makaanig haddii la soo baray ama koronto yaqaan la soo baray ama electronic television iyo radio tuulkii ku shaqaysan soo wata in la soo celiyo waxaan talyaaniga hore ugu wada hadalnay haddana aan usii adkaynayn waxay taas oo in la dedejiyo aan rabno taas waa midaas waxaa jiro midda kaloo mabda ah qofka soomaaliga ah hal mid inaan isla garanno waa soomaaliya haddaan nahay iyo dadka soomaalida dalkaanaan leenahay annaga dal kale ma lihin adduunyada dalkaanaan ku leenahay waana dal fiican cimiladiisu fiican tahay noloshiisu fiican tahay khayraadkiisu ay aad iyo aad nooga tiro badan yihiin si aan la xisaabi karinoo weliba ay nooga tiro badan yihiin laakiin muddo yar oo duruufo ah oo dhib badanaan galnay muddadaasi marka inaan u wada doorsoonno sax ma aha inaan annaga dhan oon doorsoonno oon ummad kale noqonno oo baasaboorro kale sito oo dalal kale oo u soo dhaartay iyo calamo kale iyo qawaaniino kale iyo dastuurro kale iyo wax kale ay xukumaan ay dhinac uga dhigi inaan wada noqonno sax ma aha waxaan anigu aaminsanahay dalkani maalin dhow aan dheerayn in la gaarayo kuwa baasaboorrada qab xataa iska celiyaan baasaboorrada idhaan bas waa aniga halkaanaan joogaya annaga ma samaynin qawaaniin dalka baasaboorrada ka celinaysa laakiin waxaan rabaa marka qof kastoo soomaali ah ama yurub xeraha kula jiro ama muxuu ahay dhadhaab iyo kaakuma ha ku jire dalkan inuu ku soo noqdaan rabnaa dalkan deganaanshihiisa iyo nabadiisa iyo waxaa ka mid a dadkiisu inay ku soo noqdaana ka mid a labada arrimood in la iswaafajiyo u baahan dalkeenna dadka dibadda ka aaday ama xariiqa xoogta ha ku jiraan ama inta degeen nolol kale ha abuureene laba isbarbartaal ma waxay sugayaan dibadda ku sugayaan dalkaano inta dego nabadoobo wax kasta ay hagaagaan kabacdi ayagoo boorsadooda wata ay la soo degaan mase dalkaani ma degaayo ayagaasoo sugayaa markay soo noqdaan ay yimaadeen ay dejiyaan ayuu dalka degayaa
dadka dibadda nooga maqan ama xero qaxooti ha ku jiraano ama jaamacadda stanford muxuu professor ka ahaadee dalkan degitaankiisa iyo dejintiisa qaybay ku leeyihiin waana u taallaa waa hawl sugaysa marka waa in la soo noqdaa see loo soo noqonaa qaabkee lagu soo noqonaa goormaa la soo noqonaa waxaasoo dhan waa waxaan ka wada hadli karno laakiin qof kastoo muwaadinoo dalkan u dhashay waa inuu dalkan u soo noqdaa soomaalida waxay ku maamaadaan shimbirkii duula irsaqiisa dhulka shimbirtu maanta o dhan haddii duulaysa inay wax cuntaa hadday rabto waa inay soo degto soo maaha meel kasta soo wareeg ama adoo nool ha lagu keeno ama adoo naxash lagugu sida ha lagu keena dalkaanaad leedahay meel kale ma lihid marka dhallinyarada waxaan rabnaa weli waa ku adkaysanaya dhallinyaradu inay soo noqoto oo dalka loo soo noqda hadii la yidhaha waa mahadsan tahay baasaboorka baasaboorka waxaan rabaa inaan la wadaago wiilkayga america iyo yurub baasaboorada aan lagu tegi karin soomaaliga bes maaha horta kow dalal badan oo nabad oon weligood dagaal sokeeya ka dhicin oo aan burbur ku dhicin baasabooradaada aan lagu tegi karin baasaboorkeedna problemo qabaa mathaalaad soo qaaday uganda arrivalaana lagu sii jiray fiisaha malaysia magaan ka degnay kuala lumpur arrivalaana lagu sii jiray fiisaha anaa ka degay oo tegey hadda ka hor long time maanta ma aha viisana laga rabaa waa maxay hal sababay leedahay shabaab waaye shabaab aan iska qabanno soomaali socda dhallinyaro ah haddee kii shabaabka ahay miyaa mase kii kale inuu qofka dalkaas kale uu ka cabsado uganda waad og tahay 70 qofooda hal cawo ka dhimatay ayagoo sports fiirsanaya faraxsan oo qoslaya ayaa hal mar bug la siiyay dhinteen inay muwaadiniintooda ka fikiraan xaqay u leeyihiin sababtaasaa nagu soo celisay nalama necba wax kaloon bi'ina male ka dal ahaan naloo namca nimankan maxaan ku rahaa masiibada ah oo ummadaani waxay u reebayaan aanay jirin oo miday dilaan iyo miday fursadaha adduunka ka soo xiraan ka dhigayo meesha ay naga jirto dadaalku naga jiro waa halkaase baasaboorka hala wareejiyo oo hala aqoonsi ha loo raadiyo maahane inta shabaab nagu xidhiidho baasaboorkeena su-aal weynaa ku taagnaane shabaab aan u wada jeesano midaan soo tuugno iyo midaan soo maslaxayo midaan qoorta ka soo qabanno aan ka dhigno aan shabaab baabi'ino meeshaas waa meesha oo iyo fikirka takfiiriga ah oo xag jirka ah aan baabi'ino aan ka tanasulno ummad nadiif ah oo dalkeeda ku xurmo leh oo ku karaamaysan aan noqono dadku markaasaana la ixtiraamaya baasaboorkeenana meel kas tegaya